رئيس الوزراء أنا كوكيل وزارة قرشنتي شقالها ضمان هل كان جوجو مركلة وحان آدي كوسو دوينا شرفنا نوعه إن أدنوسو بوقتي وزارة قرشنتا آدي آدان أسوغيني مدعات وبدن دور بلوطة سبتمبر إلا نوفمبر أنكوكو بلابي إن هل مرنو إمادت هول كان وحان ضميني دسميهيسا 15 سبتمبر وفريتانك وديار ونقد قلب كيسي وحي سنة لو دميستيري sidaas daraadeed maanta maalin weyn ay noo tahay aniga iyo bahda wasaaradda qorsheynta ra'iisul wasaare wasaaradda qorsheynta waxaa joogo ilaa iyo 350 qof oo shaqaale ah hay'adda statistikada 150 shaqaalaha gooni u joogo wasaaraddan waa wasaaradaha shaqaalaha ugu badan dawladda ay leedahay haddaysan laba ama een ama saddex wasaaradda maaliyadda marka laga reebo wasaaradda labaad aan nahay ra'iisul wasaare waxaa sharaf noo ah markii وآل بلارة وأفر قيود كبدنا قيود عن سمينه كو وحيد أرميه وزارة السوقي في بودية القارة يبتدأ إندي بيجا يكوردينيشن كي إن هرت سيهو فن أسمينه أرمها القارة وربحنا ذا لقى ربنا والدولة قيمها لكلدهم ولا قدون يكوردينيشن كودان إن صار صارنا في بودية هذا أن كتوسنا حفيزك أنت أنشوجني سيدو كلا وحان سمينه wasaaradda sidii u weyn tahay iyo shaqaalaha isku ma dheeli tirneen markay noqoto xafiisyada ilaa 18 20 xafiisooda taalo shaqaalaha ay accommodate gareynaysan 42 ilaa 47 aheed waxaan sameeynay work station oo meeshii halkii xafiis 3 qof ay ka fariisan kartay dib aan ugu noqonay work station 8 xabaan geynay 175 ayaan rajaynaynaa 2 isbuuc ilaa isbuucii soo socoto marka work stationada aan dhameeyno meeshii ka ahayd 20 ilaa 40 shaqaale inaan 175 aan gaarsiino marka waa reformka ah space in shaqaalaha loo helo sidoo kale intana xagga recognition-ka iyo aqoonsashada shaqaalaha iyo dhiirigelinta iyo qofka ugu fiican sanad kasta inaan soo saarno xafladii labaad aan soo qabanay oo qayb nagala ah saaxiibkii xirsigaani oo lagu aqoonsanayo qof kastaba qofka kale oo ka firfircoon yahay imaanshaha contribution-ka iyo maxaan ku dhahaa shaqada arrimeeda inay noqoto ra'iisul wasaare dhanka kale waxaan maanta noo furi doontaa hoolkan weyn oo aan dawladda ku soo kordhinay shaqooyinkan aan ku qabsan doono waxaad noo daahfuri doontaa 2 bildin oo aan u diyaarinayno oo shaqadooda aan xoogooda bilownay dhaqaalaha qaarkood aan u diyaarinay hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed oo some investor ah oo promote gareyn doonta Soomaaliya inay noqoto hay'addii dalka maalgelinta ka shaqeyn lahayd 3 dabaqaan rabnaa inaan halkan u dhisno 50% ra'iisul wasaare dhaqaalihii lagu dhisi lahaa waan haysanaa muddo 10 bilood ah intii kale intoon ku dhisi lahayn dhaqaalaha dhamaystirka u baan raadinayna oo kaliya waxaa sidoo kale noo furi doontaa machadkii qorsheynta qaranka oo kaadiriinta dawladda arrimaha qorshayaasha MNEs-ka statisticians-ka dhaqaalayahanada ka shaqeyn lahaayeen machadkii lagu soo saaray oo dawladdii horena wasaaradda qaybka aan jirtay asagana waa noo dhagax dhigi doontaa sidoo kale waxaa meeshaan naga baxay muddo laga joogo 6 bil ama 5 bil ku dhawaad adeer nuur deeriyo oo 50 sano ka ahaa DG iyo madaxdii wasaaradda hay'adda statistikada oo Afrikadan oo dhan laga yaqaan markuu dhintay warqadaha ay noo soo direen marka aragta taariikhda oo ay isla soo mareen ayaabisid isagana waxaan rabnaa buildingka hay'adda statistikada si la mid ah saaxiibkiis ay 70meeyadii wasaaradda isku soo biireen ceelayba faahiye ina asagana sidoo kale buildingka aan ku wacdarna 2 qof oo dawladda Soomaaliya naftooda u hurtay aqoontooda u hurtay 50 sano hal meel ka shaqeynay ra'iisul wasaare waxaan rabaa inaan qodobkaas kugu dhamaystiro oo hal qodob ku daro maalintuu adeer nuur dhimanaya 12 maalmood ka hor xafiiska uu iigu imaaday asigoo ii keenay qorshaha horumarka qaranka 1988 kii la soo diyaariyay oo ah qorshihii iyo budgetkiisii oo costingkiisii labadaas buu ii keenay 12 maalmood ka bacdi isbitaalku oo xanuun u galay 12 maalmood marka waxa qiyaasi kartaa asoo waqtigaas shaqo bilaabay maalintuu dhimanaya 12 maalmood ka hor wasaaraddu ka shaqeynay 9 jir oo ahaa sidoo ilaahay xasuustiisa iyo dadaalkiisa firfircooni da'daas oo nagula joogay boardka xubin kamid oo ahaa nin aad iyo aad marka loogu yaqaanay eed oo wasaaradda iyo dawladda Soomaaliya iyo shaqaalaha rayidka ku nool oo ku weyn asagana arintaas ay noqon doontaa ra'iisul wasaare aadan kaaga mahad celinayna howlaheena intaas ay noqon doonaan khudbado badan ma jirto